muuqaalkan kooban waxaan doonayaa inaan kaga hadlo waa qof qofka ninkan la sawiran ma walaalkiiba ma adeerkiiba ma qaraabadiisa ma saaxiibkiiba waa kuma qofkan la wareejinayo dadkan loo sheegayo inay yihiin laba qof walaal ah si aynu balaarintan u fahno bal wax yar aan dib idin celiyo saad u fahantaan goorta ninkan ay ku dhalatay inuu bulkeeno qof walaalkiiya muuqaal kamid muuqaalada ugu dambeeyay oo aan ku soo bandhigay xogaha ninkan la xiriira ayaa waxaan kaga hadlay asaga iyo hooyadii iyo qaraabadiisa uu ka dhuumanayo sida markaa isugu egyihiin waxaan idin sheegay inay wajiga xoog isaga egyihiin isla markaasna aysan cid walba isku ekaan karinin ilaa ay dadooda dhashay ma ahane wixii intaa ka dambeeyay AJ waxaa ku soo dhacday fikrada sideed ku heshaa bal qof ku eg oo aad u tiraahdo waa walaalkay oo markaa ummadda qaar badan oo kamid ah lagu jahwareeriyo kadibna wuxuu qaybiyay muuqaalkan waxaana loo qaybiyay dad badan oo asaga taageerayaashiisa iyo asxaabtiisa xogaa kadibna asaguna wuxuu soo geliyay isla muuqaalkii ayuu soo geliyay laakiin kuma uusan soo qornin waa walaalkay afkiisana wuu ka dhowra waayo waa arrin mar walbaba uu fahmi karayay inaan keeni karaya arrintaas inta wixii ka dambeeyay waxaan aad ugu fiirsay bal muuqaalkan iyo labada nin labada muuqaal markii aad fiiris way kala duwan yihiin midka asagu soo galiyay qaybtan hoose oo dambe waxa laga saaray sawir laakiin kuwa asxaabta ay wareejinayaan oo markii hore gacantiisa ka baxay uu bixiyay Facebook iyo YouTube kana galay iyo Twitter kaba iyo TikTok gaba dhamaantood ma ay lahaan sawirkan asagu markaa u saaray labadan marka muuqaal differencegooda iyo muxuu eegay sawirkan hoos uga saaray bal aynu iyo fiirino markii aad fiiriso kan sawir baa la saaray laakiin kan sawir lama saarin midka sawirka la saaray markii aynu u fiirsano ninkan markii aad wajigiisa fiirso hoos gacanta ayuu fiirinaya gacantiisa markii aad fiirso waxaad arkaysaa gacantu inay suulka ka go'an tahay si fiican halkaygu dhageysta sawir ninkan kor muuqaalkiisa markii aad fiiriso gacantiisa ayuu fiirinayaa gacantana markii aad soo dhaweyso waxaad arkaysaa asaguna isla farti inuu ka go'an yahay kaliya videogii ayaa la wareejiyay gacantii baa xagga martay xagga jirtay laakiin gacantu fiirinayaa luqdad gacmeed meesha ku jirta haddaba ninkan walaalkii la leeyahay asaguna ma farta ayuu go'an yahay baan ka wadaa ma reer fareyla ayagoo dhanba asagu fartu go'an yahay walaalkii ma fartu go'an yahay maamada qarsoon oo leeyahay hooyadiisna talo asaguna ma fartay ka go'anta maxay tahay arrintaas si kala hadaan idinkugu dhigo muuqaalkanu waa AI video way this is artificial intelligence video way ma ahan video dhab ah waa video la sameeyay isla qofkan taagana waa asagii qofkan hooseeyo fadhiyana waa asagii kaliya xoogaa yar ba featureska wajiga la kala bedela waxaa jira program aad caan u ah maalmihi la soo dhaafayna dunida oo dhan ba qabsaday labadii sanaad ugu dambeysay dunida qabsaday oo la yiraahdo AI toy la yiraahdo asagaas lagu sameeyay tusaale oo kale labada nin arkaysaan warbaahinta fadhiya ee wada hadlaya waa isku hal nin laakiin waa AI twin laakiin wajiga iyo timaha xoogaa baa la kala bedela markii aad fiirisaan labada nin ee isku soo horjeeda ee qaylinaya ayaguna video ay sameynayaan sidii laba qof oo murmaysa laakiin waa hal nin waa AI twin way markii aad fiiriso gabdhahan kaleeto ayaguna xogaa yar baa wajigooda u dhaxeeya la sameeyay ayaguna waa AI twin way labada ninna meesha saarana ayaguna waa AI twin ma jiro qof kale oo meeshan ku jira oo walaal ah cidii loo sheegana waa inaan waxba garan karinin ama programkan aan dooninin inay si cadaalad ah markaa u fiiriyaan ninkaan marka wax walba uu hooyadii uu kaga dhuuman karayo uu sameeynaya laakiin wax walba oo macluumaad ah oo arrintan ku saabsan maalinba biiskii aan helno miiska ayaa soo saari doona laakiin waxaan wadi doonaa hadba information walba oo aynu soo helnay waxaan rabaa muuqaalkan inaan ku xaqiijiyo qof walaalkii ma jiro qofkan waa AI twin asaguna sababta uu coverkan u saaray farta ayuu gadaal ka arkay markii uu muuqaalku baxay waxaa maqli jira haddii xaqa afka la qabta feeruhu ka dilaaca muuqaalkan markii uu bixiyay oo uu galay TikTok ka bacdi ayuu arkay in fartii la arkayo muuqaalkii asagu uu soo geliyay marka uu leeyahay dadku way arkayaan xoog baa loo daawan doonaa wuxuu saaray cover farta lagu qarinayo ayuu saaray waayo uu fahmayaa inaan soo fahmi doono laakiin si walba uu qariyaba xaqa banaanka ayuu imaanayaa annaguna waynu qodi doonaa macluumaad walba aynu ka heli doono aad baan idin salaamaya meel walba joogtaan isoo boodi maqlaysanba